kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa aayaha janaal ku soo dhowaada warbixin xiise leh oo aan kaga hadli doono carruurta mataanayaasha ah ee ku dhalanaya adduunka gebi ahaantiisa ayaan kaga hadli doonaa. fadlan haddaad janaalkan ku cusub tahay iminka subscribe saar, asxaabtii horena haddaad ka mid tahay waa ku mahadsantahay la joogistaada. waxaa sii kordhaysa tirada carruurta mataanayaasha ah ee ku dhalanaya guud ahaan caalamka sida kuwa daraasaad cusub ee la soo saaray. waxaa sanad waliba guud ahaan caalamka ku dhasha carruur mataano ah oo tiradoodu ay gaarayso 1.6 milyan oo carruur ah. tiradan ayaa ka dhigan in 42kii ee dhalataba mid ka mida uu yahay mataano. arrintani ayaa loo aaneeyey in dumarka qaarkood markii ay qaangaaraan kadib ee aan muddo dheer aysan dhalin wax carruur ah. sidoo kale waxaa iyaduna loo aaneeyey in daawada nuuceedu loo yaqaano IVF oo dadka qaar ka caawinaysa in ay u sahasho fursad mataano lagu dhali karo. tan iyo intii daawadan IVF la soo saaray 80yadii ayaa waxaa sare u kacay tirada haweenka dhalaya carruurta mataanaha ah, balse khubarada ayaa waxa ay leeyihiin marka la eego dhanka badqabka waxaa dumarka u wanaagsan in hal cunug keliya ay dhalaan. sida ku cad warbixinta The Journal Human Reproduction, tirada mataanayaasha ku dhalanaya guud ahaan qaaradaha caalamka ayaa sare u kacday. muddo 30 sano ah waxa ay tiradu ay sare u kacday 32% dalalka Asia, halka waqooyiga Ameerikana ay tiradoodu sare ay u kacday 17%. cilmi baaridan ku aadan mataanayaasha ayaa laga sameeyey 165 dal ee laga bilaabo sanadkii 2010 ilaa iyo sanadkii 2015. waxaa loo barbardhigay daraasadii la sameeyey sanadihii 1980kii ilaa iyo 1985kii. tirada mataanayaasha ku dhalanaya dalalka Yurub iyo waqooyiga Ameerika ayaa iyaguna aad u sare kacay. guud ahaan caalamka 1000kii canug ay dhasha 12 ka mida waa mataano, balse tirada mataanayaasha ku dhasha dalalka qaaradda Afrika ayaa weligoodba sarraysay, islamarkaana ma jirto wax badan oo iska beddelay 30kii sano ee ugu dambaysay. maxay tahay sababta gacanta ka geysanaysa arrintan? dalalka qaaradda Afrika iyo Asia ay ku dhashaan carruurta mataanayaasha ah ee ugu badan, taasi oo imika gaartay 80%. brofesor lagu magacaabo Christian Monden oo ah khabiirka qoray cilmi baaridan islamarkaana ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa sheegay in ay jirto sabab arrintan ka dambaysa. tirada mataanayaasha ku dhalanaya Afrika ayaa sarraysa sababtoo ah carruurta ka beermaya 2 ukumood ee kala duwan, waxaana halkaasi ka dhasha mataano ayuu yidhi. waxaa kale uu yidhi waxaa laga yaabaa in tani ay ugu wacan tahay hidde-side laga yaabo in dadka Afrika ay ugu duwan yihiin caalamka intiisa kale, ayuu sii raaciyey. tirada carruurta mataanayaasha ah ee ku dhalanaya dalalka Yurub iyo waqooyiga ayaa sare u kacday, islamarkaana waxaa taasi loo aaneynayaa in ay gacan ka geysanayso daawooyin macmal ah oo bacrimin ah, islamarkaana uu qofka fursad u yeelan karo in uu qaado uur mataano ah. daawooyinkan ayaa kala ah IVF iyo ICSI ayaa waxay yihiin kuwo bacrimin ah, islamarkaana sare u qaadi kara tayada ilmagaleenka. dhammaan daawooyinkani waxay sare u qaadayaan suurtagalnimada in haweenayda ay qaado uur mataano ah. daraasadani ayaa lagu ogaaday inay aad u yar tahay fursadda badbaadinta mataanayaasha ku dhasha dalalka dhaqaalaha ahaan aad u hooseeya iyo kuwa dhaqaalahooduba ay dhexdhexaadka ay yihiin. dalalka saxaraha Afrika ka hooseeya mid ka mida mataanayaasha ayaa dhinta sanadka ugu horreeya ee noloshiisa. tiradani ayaa micnaheedu ka dhigaysa in sanad waliba ay dhintaan in ka badan 200,000 oo carruur ah. marka mustaqbalka la eego, sida ku cad cilmi baaridan, dalalka Shiinaha iyo Indiya ayaa door weyn ka qaadan doona tirada mataanayaasha ugu badan ee caalamka. warbixintan inta ayaan ku soo koobayaa. halkaad kala socoteenna waa aayaha janaal. intaa dib u kulmi doono warbixinno kale oo xiiso leh. sidaa iyo nabadgelyo.